cabdicasiis xasan maxamed oo ku magac dheer lafta gareen wuxuu ku dhashay degmada Luuq ee gobolka Gado sanadkii 1970 wuxuu leeyahay hal xaas iyo 3 xaruur ah waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe iyo sare wuxuu ku qaatay isla degmada Luuq wuxuu Luuq ka ahaa macallin iskuul magaalada Muqdisho ayuu jaamacad ka dhigtay xilal badan ayuuna dawladihii dalka Soomaaliya ka soo qabtay sanadkii 2007 wuxuu ahaa maamul ku xigeenka Furdada Xamar sanadkii 2008 waxa xukuumadda ra'iisul wasaare Nuur Cadde uu ka soo noqday wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada sanadkii 2009 wuxuu xukuumaddii Umar Cabdirashiid ka noqday wasiirka gaadiidka iyo arrimaha bad isla xukuumaddii Umar Cabdirashiid wuxuu sanadkii 2010 ka noqday wasiirka xanaanada xoolaha xukuumaddii ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu noqday wasiiru dawlaha boostada isgaarsiinta iyo warfaafinta xukuumaddii Cabdulle Sheekh Axmed wuxuu noqday wasiir ku xigeenka kalluumaysiga xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre wuxuu noqday wasiiru dawlaha wasaaradda ganacsiga wuxuu u tartamay gudoomiye baarlamaan wuxuu noqday wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed wuxuuna helay codad gaaraya 101 cod halka musharaxi ku soo xigay aadan maxamed nuur salansoor uu helay 22 cod waa sidee doorashada uu ku guuleystay madaxweyne cabdicasiis lafta gareen doorashada koonfur galbeed ayaa waxa aad ugu kala qaybsamay siyaasiyiinta iyo bulshada maamulkaas dadka ka soo jeeda koonfur galbeed oo ay ka mid yihiin waxgaradka ayaa in muddo ahba ku celcelinayay in cabdicasiis lafta gareen uu yahay siyaasi ay gadaal ka riixayso dowladda federaalka iyagoo arrintaas ku qeexay faragelin lagu sameeyay hanaankii doorashada dadka kale waxa ay ku doodayaan in dowladda dhexe ay wadada u xaartay siyaasigan si uu xilka ugu hanto qaab sahlan waxyaabaha ay ku doodayaan waxa kamid ah in labadii siyaasi ee loolanka adag gelin lahaa ay meesha ka baxeen madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ayaa iscasilay doorashadana isaga haray kadib markii uu ka cawday cadaadis siyaasadeed oo la soo saaray sidoo kale maalmo yar ka hor xilliga doorashada loo balansanaa waxaa xabsiga loo taxaaway Mukhtar Robow oo loo arkay inuu ka mid ahaa musharaxiinta ugu cadcad doorashada shakigana gelin karay inuu xilkan ku soo baxo cabdicasiis lafta gareen maxay tahay caqabadaha horyaala cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo cod aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashada xilka madaxweynaha ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxa sida muuqata horyaala caqabado waaweyn oo ay saameyn ku yeelan karaan maamulkiisa cusub arrintan ugu horeysa ee ugu baahan in xal loo helo ayaa ah amniga gobolka gaar ahaan magaalada Baydhabo halkaas ay maalmihii la soo dhaafay ka dhaceen xasarado salka ku haya doorashada iyadoo haddana wali ay walaac xooggan muujinayaan qaar ka mid ah shacabka qodobka labaad ee madaxweynaha cusub shaqada badan ugu baahanaya ah sida uu u soo afjari lahaa kala qaybsanaanta baahsan ee ka dhex jirta siyaasiyiinta iyo bulshada ka soo jeeda koonfur galbeed kuwaas qaarkood oo ay si weyn uga soo horjeedaan doorashadiisa 5 musharax oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka ayaa kula loolamay xilkan waxaana horay u tabanayeen cabashooyin ku qotoma awoodiisa siyaasadeed diyaarintii Mustafa Abukar Cabdi Caashiq Doon soo jeedintii Ashraf Cabdi Baasit cabdicasiis xasan maxamed oo ku magac dheer lafta gareen wuxuu ku